madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta villa Soomaaliya kulan kula qaatay qaar ka tirsan dadka naafada ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muhiimadu ay tahay daryeelka naafada iyo sidii dawladda Soomaaliya ay wax ugu qaban lahayd dadkaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale tilmaamay in dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya oo wali hawshiisu ay socoto in lagu soo dari doono noqolo ama qodobo si gaar ah u quseeya dadka naafada. gudoomiyaha naafada Soomaaliyeed Cali Cabdullaahi Salaad ayaa sheegay in wixii dhib ay qabeen ay kala hadleen madaxweynaha Soomaaliya. maanta waxaan halkan kula kulannay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mahadceliyay qaabilaadii iyo qiimaha leh ee uu noo sameeyay maanta. walaal naafada qaranka oo markii ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ku qaabilo aadaan ugu faraxsanahay waxyaabaha aan ka wada hadalnay ee ku saabsan arrimaha naafada xaaladahooda kala duwan waa isla afgaranay madaxweynaha ballanqaad fiican oo siiyay haddana waxaan bilaabi doonaa shaqooyinkii loo baahnaa ee ku saabsan arrimaha naafada sidii loo horumarin lahaa sidii loo daryeeli lahaa runtii waxyaalo badan aan ka wada hadalnay madaxweynaha kana codsanay waxyaabihii aan ka codsanay oo aan ka wada hadalnay aad uu nagu soo dhaweeyay aad uga mahadcelinayna insha Allah taala afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys ayaa dhankiisa sheegay in madaxweynuhu ballanqaad u sameeyay dadka naafada ah ay mararka qaar soo wajahdo dhibaatooyin badan. waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu ballanqaaday xubnaha golaha naafada oo maanta la kulmay waxa kamid ah in la sameyn doono xafiis gaar ah oo hoos imaan doona madaxtooyada kaas oo shaqadiisu ay noqon doonto in uu ka shaqeeyo daryeelka iyo waliba isku xirka baahiyada ama waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka naafada ee Soomaaliyeed. waxa kale oo madaxweynaha uu ballan qaaday in laga shaqeyn doono in dastuurka haatan qabyada ah shaqadiisa la hayo lagu soo dari doono qodobo ku saabsan daryeelka xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliyeed iyo waliba in xafiiska madaxtooyada uu gacan ka geysan doono sidii loo qaban lahaa shirweyne ama kulan weyn oo isugu yimaadaan dhammaanba naafada kala nool gobolada dalka. golaha naafadana shirkaasi ayuu qaban qaabin doonaa xafiiska madaxtooyadana gacan ayuu ka siin doonaa. marka baahiyada iyo warqad rasmi ah oo golaha naafada uu soo gudbiyay madaxweynahana way jirtaa. warqadaasina waxa ku qorneed baahiyada ay qabaan oo ay kamid yihiin in dhinaca siyaasadda ay ku yeeshaan door ay ku yeeshaan dhinaca adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabo kala duwan. waana dhammaan waxyaabo ay dawladdu ka shaqeyn doonto iyadoo la kaashanayo golaha naafada shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha siyaasadda sida baarlamaanka iyo maamulada gobolada dalka ka jira. Cabdiraxiin Cabdullaahi Cable TV magaalada Muqdisho.